أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إلهي وحيري سبحانه وتعالى asagoo inuu kaga digahaya dadka xaqdiidiinta ah ee gaalada ah ee ilaahay u shariik yeelay ee mulxidiinta ah inaannu ka dhiganno xariir ama kalgacal caloosha anugu qaadno urka anu qaadna kalgacal asagoo ilaahay inoo diidaya ayuu inoo naadiyo ilaahay wuxuu ina yidhi subxaanahu wa tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaah iyo rasuulka rumeeyow haddii aad tihiin dad mu'miniin ah ha ka yeelanina aniga cadowgayga iyo adinka cadowgiinna dad aad kalgacal caloosha ugu qaataan oo aad uurka ugu haysaan kalgacal ha ka dhiganina. waxa ay yihiin dadkaas ayaka ah oo xaqdiidyada ah oo gaalada ah haddii aad ugu qaadaan caloosha kalgacal waxay idin gaarsiinaysaa islaamnimadiinnii khatar inay noqoto. sidaasaa ilaahay wuxuu ina leeyahay لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة كالقعل إن لوغو قاضه لما دون يورك وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا محي سميان وحلو وحي حق أها أو إدين يمد أو دين تان إسلامكو أي كمتهاي أو رسالة النبي أي كمتهاي oo iimaanku uu ka mid yahay oo ilaahay in loo hoggaansamaa ay ka mid tahay oo dhan bay diideen. kuwaasay ku kufriyeen marka waxay jecel yihiin ayakuna inay adinka idin baadiyeeyaan. baadi moogii wax kale idinkugu yeeri mahayaan, dhibaato moogii wax kale idinkugu yeeri mahayaan, khadaacad moogii wax kale idinkugu yeeri mahayaan. mar la arkaba inay idin khadeecaan bay doonayaan. marka dadka ayaka kalgacal uurkiina ha u gelinina هانا الله صاحبيننا سداسا إلهي إليه. سدا إلهي آيات كلا كيري لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إلهي وحو إليه نبي محمد هل ميسد لا تجد قوما يؤمنون بالله دد إلهي الرميي قيامه هذا الرميي يوم الآخرة الرميي دد كا أيك أكهل ميدد إني كالقعرودان أو كالقعل أي أورك أو غادان إلهي روح كأي شيء ملحد إني أورك كالقعل أو غادان أو لصاحبان أو يعز كدوران كهل ميسد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. روح إلهي كأي شيء إني أكل قعروران كهلميس بل ننكا هدو قالكا ملحدكا أو كالقعل علوشا أقليو أساقو كالوي وح أو كدويها ما إجرتو وحي أساقا شريعادو إيكوبا نيسا ننكا ملحدكا عدو قاقا inaad kula isticmaasho aad ayaka kula isticmaalaysaa dadka mulxidiinta ayaka u iishay. markaasaa waxaa la yidhi dadka ay kalgacroonayaan ee mulxidiinta ama gaalada ah haba ahaadeen aabbayaashood hooyadood iyo aabbahood ha noqdeen wiilashoodii oo kuwii ayaku ay dhaleen ha noqdeen walaalahoodii ha noqdeen cashiiradoodii
marna ruuxii ilaah iyo rasuulka iyo yowmul aakhira rumeeyey ka heli maysid inay dadkaa jeclaadaan hadday dadkaa jeclaadaan fa innahum minhum marka ayakay ka mid yihiin sida ayaka aad kula macaamiloonaysaa sidaasaa waxaa la doonayaa maalan haddaad geed weyn falayso oo geed weyn guntiisu inay kuu bannaanaato aad doonayso laamaha qodaxda leh ee gacanta kaa dalfinaya kuwaasaa marka hore la guraa waxaa marka waajib ah markaad la gelaysa dadka ayaka ah aad la colaytamayso ama aad ayaka cadowsanaysaan oo dagaalamaysaan inaad kuwa ooda ah ee ka soo hoosokeeya hankool ganale aad isaga wareejido masaartana aad gunta uga goyso sidaas ayaa shareecadanada ina amraysaa marka waxay tahay kala saar marka waxaad u kala saartaa dadkii mushrikiinta ahaa marka laba u kala saar haddii ilaahay uu ina yidhi laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhir yuwaadduuna man xaada allah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ilaahay taa hadduu ina yidhi marka waxaad kala saartaa bal gaaladii kala soo waxaa jira marka gaal aamin aad ka gelayso oo ammaano aad ka tahay oo aan doonaynin dalkaagii iyo diintaadii iyo dad ahaantaadii iyo mabaadi'daadii midna inuu soo farageliyo halkaasuu kaa joogaa markaasaad waxaad ku saaxiibi kartaan oo shayga la yidhaahdo siyaasada iyo dablamaasiga ayaa saaxiib ku tihiin kaa marka faragelin inuu kuu yeesho dooni mahayo cadow kale inuu kuusla soo sartana dooni mahayo kaa marka ilaahay muxuu leeyahay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsidiin kuwaa gaalada ah oo idnaan isku diinta ahayn ee halka aad kala joogtaan maalan dowladaha ah diinta haysta kiristaanka ee adduunka meel ay joogaanba adnaan calaaqaad wanaagsan aad leedihiin laakiin aan doonaynin dalkiinna inay furtaan dadkiinna inay addoonsadaan deeqiinna dulun inay ku qaataan aan doonaynin ee aad leedihiin shay ah calaaqaad wanaagsan iyo siyaasad wanaagsan iyo diblomaasiyadu idinka dhexayso taa ilaahay diidi mahayo inaad u noqotaan cahdigii aad ka gashaan aad u oofidaan ballankii aad ka qaadaan aad u oofidaan mucaamilo wanaagsan aad kula mucaamilootaan sida aayadda tanu ina leedahay laa yanhaakum allahu ilaahay idinka reebi maayo can aladiina lam yuqaatiluukum kuwa aan idinla dagaalamayn fi ddiini diinka xaggiisa aan kula dagaalamayn laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum haddana daartiinna aan idinka bixinayn oon doonayn inay idinku soo idinla dagaalaan ama dad kale aan idinla soo safanayn kuwaas mucaamiladooda idinkama reebin buu ilaahay leeyahay kuwaa aan doonaynin daartiinna inay idinku soo galaan oo idinku addoonsadaan oo idinku dhibaan kuwaa ilaahay idinka reebi maayo innamaa yanhaakum allah marka kuwaa inaad baari u noqoto ood mucaamilo wanaagsan iyo saaxiibtimo aad la yeelato iyo wax isweydaarsi iyo wax kala gadasho aad la yeelato oo aad siyaasad wanaagsan mucaamilo wanaagsan inay ka dhaxaydo ilaahay idinka reebi maayo khalqi weeye khalqigana ilaahay wuxuu doonayaa khalqigu inuu mucaamilado oo carrada ilaahay ay wada camiraan fa ama marka yaa laydinka reebayaa innamaa yanhaakum allahu can aladiina qaataluukum fi ddiin wa akhrajuukum min diyaarikum wadaaharuu calaa ikhraajikum an tawallowhum waman yatawallahum fa ulaa'ika hum alzaalimuun ilaahay wuxuu ina leeyahay waxaa ilaahay idinka reebaya kuwa idinla dagaalamaya oo mar la arkaba idin dabbirahaya inay khayaano idin maleegaan oo mar walba idin diyaar galaynaya cadow ay idinku soo qaadaan col ay idinku soo qaadaan oo doonahaya dalkiina inay isticmaarsadaan ama dadkiina ay dullaystaan ama duunyadiinna ay dhacaan dadkaa ayaka ah ayaa ilaahay idinka reebaya
oo diinta xaggeeda idin kala dirirahaya oo dad ahaanta xaggeeda idin kala dirirahaya oo sharafkiina baabi'inaya kuwaasaa ilaahay idinka reebaya an tawallowhum inaad ka weli dhigataan waman yatawallahum fa ulaa'ika hum adhaalimuun kuwaa ayaka ah oo isukiin kaalmaysanay wadaaharu calaa ikhraajikum inay dalkiina idinka saaraan idin dulooyaan isu kaalmaysanaya kuwaasoo isu kaalmaysanaya inay idin addoonsadaan kuwaasoo isu kaalmaysanaya khayraadkiina inay ayaku dhaxlaan kuwaasoo isu kaalmaysanaya awlaadiina iyo ahalkiina inay addoonsadaan kuwaasaa ilaahay idinka reebayaa inaad ka weli dhigataan ood xaggooda u iilataan ood la safataan ood kalgacal caloosha u qaadaan oo aad macaamilo la yeelataan kuwaasaa laydiin diidahaya waman yatawallahum ruuxi ayaka ka weli yeesha oo xariiriya ka yeesho xariiriya fa ulaa'ika hum adhaalimuun baa ilaahay ina leeyahay kuwaasu waa dhaalimiin baa ilahay ina leeyahay oo dhaalimiin marka maxay tahay dhaalimiinta iyo kaafiriinta iyo munaafiqiinta isku hal weeye xagga shareecada isku hal weeye marka ruux la arkaba ruuxi asaga oo kalgacaloodo oo jeclaado ayuu ka mid yahay buuri nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh dadka ayaka ee mulxidiinta u heelinaya ee mulxidiinta la safanaya ee mulxidiinta meel kala soo jeesanaya ee munaafiqiinta ah waxay yihiin dad ilaahay iyo rasuulka iyo mu'miniinta khadaacahaya khadaacadaas ayakana ayaka mooye wax kale oo helaysaa ma jirto ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walaa yaxiiqu lmakru sayi'u ilaa biahli ruuxa xumaanta maamula weligii oo xumaan maamulaha ah oo war xuma tashiilka ah oo munaafaqa ah dhibaatada ka timaada asaga ayay dib ugu noqonaysaa asagayna naar gelinaysaa aakhiro adduunkana dulli iyo inkisaar iyo dhibaato iyo ihaano ay u noqonaysaa marka waxaa la doonayaa inaan weligana iska ilaalino dadka sidaas ah inaan meel isaga soo jeedno war xuma tashiilka iyo munaafaqa weligiis waa u jiri jiray sabinkii nabiga naga salawaatullaahi wasalaamu calayh waa u jiri jiray waa dadkii ilaahay rasuulkiisa uu yidhi salaad korkooda ha ku tukanin janaasaha ku tukanina waxay tahay haddii ay dhintaan doofaarnimo ahaan in laysaga dhaqaajiyo ayaa shareecadu na amraysaa maahane salaad in lagu dukadaa xataa ma i banaana in kasta uu tawxiidsanayo mar hadduu la safto cadowga ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dad meel ka soo wada jeeda dantooda iyo diintooda daryeela cadowgoodana garta in aan ilaahayna ka dhigaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu